kulanti wacan oo wanaagsan dadka la dhegaysanaya idinkiinba kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee Warsan oo aalaba baryahan baa idiin waday barnaamijkii looga hortagayay ama in lagu xakameynayay cudurka coronavirus. Ururkayaga ee Warsan Media iyo Finnish Somali Media midkoodna kuma qaato barnaamijkan wax lacag ah sida dadyoga qaarkood. Welina bulshadana Soomaaliyeed ayaanu ka wacyigelinaynaa iyadoo marna bulshadii Soomaaliyeed lagu tilmaamayo inuu cudurka u badan yihiin marna la leeyahay wacyigii bay qaateen si wanaagsan bay wax u qaateen hadda cudurkii waa uu ka soo yaraanaya oo hawlahooda waa okay. ugu horeyn maanta barnaamijkayga waxaan ku marti qaaday oo igula sugan qaybteena maqalkii muuqaalka injineer Idris Xasan Faarax oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalkan Finland isla mar ahaantaana ah gudoomiyaha ururka Tule Mukan. ku soo dhawow ugu horeyn idaacadda Warsan. Muuse aad baan ku salaamayaa mahadsantahay oo dhow. sidaad la socotidba cudurkan coronavirus ayaa dunida aafeeyey oo qaarad isaga gudbay dalkan Finlandna laftigiisa oo adduunka kala mid yahay dhibaatooyinka u geystay caalamka ka dhaqaale ahaan ka caafimaad ahaan ka bulsho ahaanba. adigu sidaad u aragtaa mase oran kartaa cudurkani dadka Soomaaliyeed ay ku badan yahay? bismillah dabcan xaqiiqatan cudurkan waa cudur dilaa ah oo haddii ilaahay kuu samata ogol yahay adduunka ka yaabiyey weliba dadkii dhaqaalaha lahaa iyo waddamadii horumaray ka yaabiyey mana la dhihi karo Soomaalidu ku badan yahay ama Finishku ku badan yahay waxa weeye hadba dabcan sida bulshadu cudurka u saameeyo hadduu kulankoodu badan yahay maadaama Soomaalidu ay aad u kulmaan oo dad mataqaanaa u kulma yihiin oo baarar ku kulmaan maqaaxiya ku kulmaan oo masaajiyo ku kulmaan Finishku arrintaas waa maaragtay aad bay ugu adag tahay inuu sida ay Soomaalidu una yar tahay una kulan badan yihiin markii la fiirsho laakiin ma qabo in maxaan ku raahdaa Soomaalida uu gaar ku yahay anigu ma qabo. waa gartay dhawaan maamulka Helsinki ayaa waxaa ka soo baxay warkaas adigu sideed u arkaysaa iyo ururkaaguba? mayda arrintaas waxay ahayd arrin mataqaanaa uu ku degdegay maayarka magaalada in loo hoosgeliyey iyo inuu dee ugu talagalay anigu ma garanayo laakiin waxaan qabaa inuu ku degdegay kuna khaldamay arrin loo baahan yahayna ayna ahayn oo ayna ahayd mataqaanaa arrintaasoo kale inuu ka gaabsada ay ahayd midda labaad 200 sida caadada ah ama sida mar walba ay sheegaan dadkan Finishka ama dowladda Finishka ama idaacadaheedu say sheegaan waxaa la yiraahdaa inta cudurka laga helay oo la xaqiijiyey laakiin haddana waxaa la dhahaa boqolkiiba intaa 20 jeer intaa 20 jeer maxaan ku rahdaa wuu ka badan yahay oo bay dadku yiraahdaan marka waxaan qabaa in arrintaas arrin khalad ay ahayd baan anigu qabaa. saamaynta ururkaaga Tule Mukan uu saameeyey cudurkan coronavirus maxay la eg tahay mise maba idin saamayn baad isleedahay? dabcan dawuuna saameeyo waxa weeye annaga iskuulaadkan la shaqaynaa iskuulaadkan weliba inaan mataqaanaa mashaariic badan fulinaan rabnay oo iskuulka iyo mataqaanaa iyo galabtii oo kaleeto aan mataqaanaa sidii ururkanagii horay oo kaleeto uu u shaqayn jiro kale u shaqeeyo marka dabcan wuuna saameeya sababtoo haddee dad lama kulmin karo dhalinyaro lama kulmin karo wax looma bari karo arrintaas marka aad buu noo saameeyey xaqiiqatan. marka xaggee ka howlgashaa Mafaanta Helsinki Espoo xaggee baad ka howlgashaan hadda? annaga hadda waxaan ka howlgalnaa waxaan la yidhaahdo galbeedka Helsinki iyo maxaan ku raahdaa iyo galbeedka Faanta intaba waan ka howlgalnaa. markaad fiirisid labada galbeedba dacalka ayay isku hayaan dhalinyaradiina haatan dhibaatooyin fara badan baa soo wajahaysa marba marka ka dambaysa sidee baad u aragtaa
sideese u wajahaysaa maad is leedahay dabcan arrintan arrin urur iyo 2 iyo 3 toban ay wax ka qaban karaan ma ahan waa arrin Soomaalida oo dhan u taalo haddii ilaahay ku samato gol yahay waalidiinta u taalo masaajidada u taalo qof kastoo indheergarada u taalo arrintan marka waa dhalinyaradeennu waa kumaanku waaye mar hadday kumaanku yihiin de wax maaragtay baa laga soo rogi kara ma ahan waa arrin aad u ballaaran sidaa darteed waxaa weeye waa wax mataqaanaa wax guud waaye wax urur iyo 2 iyo 3 iyo ay wax ka qaban karaan ma ahan marka dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo isku wada tiirsanaado isku mataqaanaa oo waxaan ku raahdaa gacmaha is wada qabsada saasay ku habboon tahay runtii in la yiraahdo midnimaan ugu baaqaya ummadda Soomaaliyeed inay isgarab istaagaan ururada shaqaynayo oo hadda mataqaanaa shaqooyinka wadana la gacan siiyo laga faa'iideysto ururka Soomaaliyeed oo kaleeto shaqooyin cajiib u haya aad u waaweyn mataqaanaa in lagu dhiirigeliyo oo lala shaqeeyo oo dadka mataqaanaa sababtoo waddankan waxa weeye waddan iskaa wax u qabsan waaye saad la socota waxa waaye ummaddan finishka intooda badan si mutadawacnimo ay u shaqeeyaan marka dadka qof mushaar lama wada siin karo dadka mushaar looma wada heli karo marka waddankaad aragtay inta qof iskaa wax u qabso oo finisha u shaqayso maalintii u yartaa waxa laga yaabaa qofka finishka inuu 1 saac ama 2 saac dad badan oo finisha ay iskaa wax u qabso u shaqeeyaan ayagoon lacagna ka helayn waxaan la yiraahdaa baba ixtoon marka dadka Soomaalida waa in kuwaas oo kala laga helaa ummadna lama horumarin karo laguma horumarin karo in mataqaanaa ama mushaar la qaato ama mushaar la sugo ama dad gooni ah laga sugo ummad laguma horumarin karo ummad waxa lagu horumarin karaa in la helo dad mutadawiciin ah oo u istaago aan waxba ka doonaynin oo maxaan ku raahdaa waqtigooda iyo weliba dhaqaalahooda geliyo sida adiga hadda aad sheegayso aad leedahay barnaamijkan hadda aad wado oo cidna mushaar kugu siinaynin oo hadda aad mataqaanaa xilliga kan u soo jeedo waxay garanaysaa mataqaanaa waa in dad badan oo saas oo kale tan la helaa waa gartay adiga ka urur ahaan maxaa kuu qorshaysan sanadkan hadda bilowga ah runtii waxaa noo qorshaysan hadda annaga xarun horta aan ku shaqayna ma lihiin waxaan rabnaa inaan helno iskuulaadka waan ka helnaa meelo waan ka helnaa waana ka heli karnaa laakiin waxaan u baahannahay sanadkan waxaan rajaynaynaa ama aan yahay hadafkanaga inaan xaqiijino inaan helno xarun ururku ku shaqeeyo oo dadka mataqaanaa xubnihiisana loogu shaqeeyo inaan samayno baa sanadkan naga go'an haddii ilaahay yiraahdo 99% waxay u badan tahay inaan xaruntaas helno xarunta markaan helnana kadibna waxay noqonaysaa in halka aan kasii ambaqaado bulshada Soomaaliyeed ee degan dalkan Finland iyo guud ahaanba dalkii Soomaaliya cudurkan coronavirus maxaa taliya tusaale ka siin lahaa horta dee anigu dhakhtar ma ihi oo cudurkan iyo sida looga hortagay iyo maxaan ku raahdaa waxaas dee ummadun aqoonta guud oo dadku akhriyay waxaan ka ahayn kama hayo laakiin sida muuqato cudurkan sida la moodahaya ma ahan wax la sahlan karana ma sida la moodahaya ma ahan oo cudurkan 90% dadka wax dhib ah ma yeelo ama waxaan si fudud loogu dhacaa ama maba ku dhacaba ama macnaha xoog looma qabto sida aniga aan mataqaanaa dee dadka expertiga ay sheegayaan ciyaalka maalintii ugu horreysay oo aan maqlo in ciyaal carruur ay u dhimatay aan joornaalada ka maqlo cudurkan corona marka inta badanna waxaa la yidhahdaa ciyaalka kuma dhaco oo maxaan ku raahdaa hadduu ku dhacana macno weyn ma sameeyo marka dadka waaweyn ee waayeelka ayuu u daran yahay marka sida muuqata Soomaaliyana dadka waayeelka aad buu ugu yar yahay oo markii la fiirsho Soomaalida dee sida waddankan waayeelka ugu badan yahay ka xagga ugu badno marka dabcan Soomaalidu kuma baraarugsano oo sida ii muuqato ama anigu wax badan ka akhriyay aad uga baraarugsano oo dadkii hargab waxay u arkaan ceeb bay u arkaan inay sheegaan oo yiraahdaan
cudurkii corona ay hayo hargab ay hayo samboor bay hayo waxaas uu sheeganayaan baa la yiri Soomaalidana aad buu ugu dhex jiraa runtii oo farabaan ugu haya laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay idankii cudurkaas inuu Soomaalida uu wax badan una yeelin maxaa yeelay waa dad runtii iska dayacan oo maanta de wadamadii Mareykankood og tahay sida mataqaanaa boolax gurdayntiisa iyo sidoo mataqaanaa awood isu biday Talyaaniga oo kale tiyaasada la socotay Spain iyo waxa ka raacay waa aragtaa iyo Faransiiska iyo Ingiriiska waxa ku dhacay hadda dadka Soomaalida waxaan malaynayaa kullay magac fiican baa u baxay oo danigooda ama malahooda inuu u wanaagsanaadaan rajaynaya waxa yiraahdeen cudurkan cudur loogu talagalay Soomaalida ma baahane waa cudur dawladahaas waaweyn oo baa loogu talagalay marka taas inuu Ilaahay u qabto oo si fudud ku dhaafaan rajaynaya aad iyo aad baad injineer u mahadsantahay adaa mudan kaasi waxa uu ahaa injineer Idris Xasan Faarax oo ah markaasi gudoomiyaha ururka Tole Mukan noo imow oo nala soco aad iyo aad baan markale kaaga mahadcelinaya tan iyo kulantii dambe waa Maxamed Muuse idin leh sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh